سودو كوجيداي أنا عاد كان هذا وقت الدوا فهمت تكتب ما كنت أنا قصود لي فهمت بوتر هذا inkasta dhibaatooyin badan waxaa jirta video ama cod oo recording layga duubay oo maanta gelinkii dambe mise gelinkii hore baan dhahday videoga tiktok la soo dhigay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب شرفت له ومركز لي مقال عصب برتنا هذه قال إحنا سوا وبرتين كل مجنة ولا كحمل يبرو هذه بمحسنتين ملك سجدوا تندافع عالم كول على قلبي واحد اللي يسولوا يكون يسولوا هذا من اللي ذكر عليه أنت أكيد ولا ريال وحنا بعدين أيدي لو ذاقو بلايا ودنكي نيو سوشيال ميديا وحنا أمرنا يا سومالي ذا وحبا أصو أركي dadka Soomaaliyeed masaanay ahaan jireen oo waxaan wax iska qarsoonaa bay ahaayeen oo bela kasta xaafadeeda la hursanaan jirtay miya mise waxani waa wax hadda social media oo dhibaato uu keenay way kolba waa mid laba afle oo hadda dhinaca loo adeegsado bay u socotaa laakiin waxaan isleeyahay xasee wuxuu jiraa xagee wax ka jiraa wiilkan iyo gabadhan dabcan gabadhan hadda waa saaxiibtiis miya ma qaba ma aqaan kolba sidii ugu soo dhowdahay gabar kale ayuu wuxuu ka duubay cod wuxuu ka duubay muuqaallo waxbuu ka duubay sir buu ka hayaa gabadhaana marka isaga u diray iyadii u diraysa labadii gabdhood buu isku dhuftay laba gabdhood oo saaxiibo ah way ahaayeen bal hawsha inaan idinka hor dhaco ma doonayee kolba Soomaalidii ba'day oo hoogtay oo belowday qaarkeed Soomaaliya oo dhan ma laakiin qaarkeed social media kuwa ku jira horta waaba beenba intooda badan baa oran kara TikTok qoliyaha jooga iyo qoliyaha YouTube ka jooga Facebook kuwa jooga kulli waxaan ku iri ha kala saarin ba ummad badan baa daaqada ka baxday balan dhageysano gabadhan iyo wiilka سودو كوجيداي أنا عاد كان هذا وقت الدوا فهمت تكتب ما كنت أنا قصود لي فهمت بوتر هذا inkasta dhibaatooyin badan waxaa jirta video ama cod oo recording layga duubay oo maanta gelinkii dambe mise gelinkii hore baan dhahday videoga tiktok la soo dhigay waaba sii ogtahayba waxay tiri video iyo cod layga duubay ma aqaan mid yahay maanta layga duubay gabadhan saanay leedahay waa gabadha wax laga duubay waa tan waxay leedahay TikTok iyo Facebook meelun baa la soo dhigayaa kolba maanta la soo dhigayaa waaba ogtahayba sababtoo isaga u sheegay oo hadda hadalkiisa waxa kamid ah cod baan ka duubaya wixii hore waa la isla soo dhaafay waa marka ay wada hadlayeen iyadoo gabar Soomaaliyeed oo u calaacalaysa anigu ceeb ma arko in uu naagtiisa u calaacalo u ooyo yiraahdo waa ku jeclahay maxaa saa igu gashay maxaa ii xumaysay duuf iyo dhereer isku daro horta anigu ceeb ma arko gabari inay ninkeedii saas oo kaleeto ay jeceshahay dee isugu darto oohin iyo duufi anigu dee dhib iyo ceeb ma arko labadaba waxaan u arkaa iska caadi wax caadi ah oo aan dhib lahayn oo ceeb lahayn waana wax dhici jiray ilaahay baana dee isu sameeyay oo uguba tala galay waxaan ninka iyo naagtu jacayl isugu beeray ma fahmaysaa marka wixii shaydaan ka dhex shaqeeya iyagu waa baab gooniya shaydaan qolyuhu ka dhex shaqeeya waa arrin gooniya laakiin waxaan ka hadlayaa waa dadka isqaba ninka iyo naagta isqaba xalaasha isku qaba oo caadiga ilaahay baa jacayl isugu beeray baynahum mawaddatun wa raxma magaranaysaa naxariis iyo isjacayl iyo isu tulid iyo inay isu damqadaan oo midba midka kale uu ka naxo ilaahay isugu beeray laakiin waxyaabaha ay samaynayaan oo maanta heerka Soomaalidu ay gaartay ama marayso wax laga aamusi karo ma wax la dhowran karo ma sidaan lama dhowran kare dhalinyaro ikacay waxaan lama dhowran karo marka lama dhowran karo in laga hadlo dhibaatooyinka ka jira ummadda dhexdooda oo social media dhexdeeda waxa ka jira in dadka looga digo oo looga sheekeeyo kuwa badan oo mobiiladii hadda haysta mobiilkan balaayada ah oo beer salaaxa ahi ummadii waa wada gaaray
waana wada haystaan masiibadiisaana badan muuqaalaa layska duubayaa balaayaa layska duubayaa screen recording baa layska duubayaa codkiibaa muuqaal shaashada baa layska duubayaa waxaa layska duubayaa muuqaala layska duubaya balaayaa layska duubayaa cod baa layska duubayaa qarsoodi wax badan baa layska duubayaa dadkii qaati bilaahi bay taagan yihiin waa la xakaaray si la yeelaa la garanaya marka sababaha aan usoo bandhigaynaa waxay tahay in muuqaalkan markuu dad badani markay arkaan gabar walba inay garasho yeelato kunkii gabdhood oo daawada waxaa laga yaabaa 800 oo ka mid yihiin inay ka digtoonaato waxaa loogu sameeyay hadhow markuu mid yiraahdo cod ii soo dira ama xabibi kaamarada fur qalbi baby waxyaabay gabdhaha ku khiyaamaystaan fur kaamarada ama iyaduba dee tiraahdo kaamarada fur oo ninkuna yiraahdo raalli ah oo kaamara waxba kaa wixi maayo ama iyadu ay tiraahdo kaamara walaal anigu waan dayacanahay ma rabo marka muuqaalkayga inaa aragtay ma fahmaysa sheeko noocaasa inay dadku dareemaan waxaan weeye ulajeedka usoo gudbinaynaa marka hadalkii baan badiyey bal aynu dhegaysano السلام عليكم ليبان. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك؟ الحمد لله. في عالم ما حد رك يقوي سمي خمرة بصوعي ما أنت رنو بصوعي. التليفون كي أنا أذكر متذكر التليفون كي وكان سلا بيز نذكر عليه التليفون كي اللي أنا بيز محاول أنت أصلا على بيز يقدر يوصل. تعرف أصلا مرة معناه إنه إتراني تلفكر يا مكان سنة. ها because maalin kasta ay soo dhacay nabadgelyo ku dhaw wax kasta ku dhaha ma soo socod ma igin mas'uuliyiin sidoo xasaran wicitaanka ay badinaysa bariis oo ku tooga sida wax yani wax bil aadin ma wax karan samay fiiri inta waxa rabta ugu sameeyay oo waxa ogta ugu sameeysay oo adduunka dhan fadhiya ay kilsmaa hadana waxa dhahaysaa waa makaana sala heerkaas ma maraysaa ha runo ku sheego been ku sheego mid kale fadeexad aan ku geliyo wax aan ku geliyo ma jirto fad badilada ay gasnaa furo aniga asal furo oo saaxiibtay ina saas anta ii raacay asas ii bahdishid macnaha hadana mid ku sheego ani ayada saaxiibana macnaheedu ma wax kasta sameynaysa aan mas'uulka okay مسؤول هكذا وين استقتل ما فهمت واحد أنا ما أقول شيء ناقد يروح ما في شيء أنا هذا الكيس هو وناتشينيا سفي عم بقول هالليا معناها وإسكان إجيانين هفن بكوس وحبو كضوبية معها إنه يسوق وناكسين هاي يدا كفي عني هاي يدنا أي مصير سنت هاي معها أساس كلية شيء كذا معنا يسوق حبو ضوبية وحو أجيها إنه وحب ضوبية وحو روا مركا waxa hadhow codadkan inuu sii daayo rabaa isagu inuu gacan sareeyo rabaa marka inaan dadku dhibaato u arag inaysan wax ceeb isaga u arag laakiin qofka duubaya isaga ceebaysan macnaha ninkani isaga ceebaysan because gabar Soomaaliyeed oo xaaskiisa buu wax ka duubay waa ceeb hadeerna ceeb buu ku jiraa waxbuu ka duubayaa markii horena waxbuu ka duubay oo waa kan gabadhu waxay u soo dirdiraysaa waxyaabo uu ka duubay alada waxay tamusandina la gelin bixisdan gabadhaas ku raali gelinay waxay tamusandina la gelin bixisdan fatada hada mid samay هذا واحد كوشة مكسر أنا أردت كلاه أنا مقف كهرباء وقت اللي سعون كلام وقت لا بقى أقف على سعون كلام. أروح يشرب بدنا أنا ضد المسؤول عن إيش لسان فوق. أيضا بفرش ما سو دبر ما والله سعون كلام ها. ما أنا دبر هذي نعرف تحط عليه عشان وقول جاي أكون برتي إن أساس أنا يوم بهدي شيء. واحد أصلا ما يرسل كل شيء تجي. ميدي كل محاول إن كلام أنا أقول تعلم فجأة بس أنا ولا شيء واقع أنا اللي تعلم أيضا وحول بقى كذا على فيدي وحركة دوبعات أيضا ده يسوي واسقطنا نكاس. يروح ويقضي. qofkaas macnaha ka dulqaad maxaa u inkiraya wax walba aniga waa ogahay okay mida ku sheeg marka ama wax kasta ogaa ama ha ogaan ana hadda waxa ku dhac ani adba kala haran inaan kala dhamaan soo ma og ha taas bisal iig kharaadar ani hadda kala harna خلاص waxa qofka wala shaqaysana qofka wala rasmeena soo mogi guurada maxaa u wadi meelaha iyo ogaan leeyahay waxyaabahan kale xad taas ayada naagaas ku jirin aniga xoolo sheekada waxa shirkada u kala gashay ugu kala gashay laakiin balan waxa uu ah inaan wajigiina runta dadka horteeda u wajiilayayo hadda saar waxaan sameeyay wuxuuna soo wado ku jeeday ana codkaan hadda waa ka duwa faantay
tiktok markastaan kusoo dhigaa faati bootadaade waxaa sameynaya kase aniga horta sheekadaas naagna fara igu bixisa rag iyo dumar laysma dhaamo beertaa lagu wada jiraa iyaduna waxay tiri wejigaaga runta aan hadda dadka banaanka usoo dhigaya macnaa hadalay ka wadaa laga yaabaa waa dhici kartaa iyaduna waxay ka duubtay inay tahay laakiin duubid ma cadda iyadu waxay tiri wejigiina runta aan banaanka soo dhigaya isagana wuxuu yidhi hadda waxyaabaha ku adleysid isaga gabadhu iska dhiseeyey gabadha kale macnaha gabadha kale wuxuu u caddaynaya inay qoftaan kala hareen laakiin hadalkan kala haridda maxay ka wadaan qabidaanba anugu sheekada ku wadayay maxay tahay kala harka mise waxaan caruurtan haddaba waxay u yaqaaniin ninkii inaagtu hadday kala tagaan oo isfuraan ma waxay u arkaan kala harid miyay u arkaan dhinac markii laga eego dadkaasi kala taga kala hare laakiin waa kala hareen laba qof oo wada sheekaysan jiray oo sheekadoodii ku kala tegay ku kala haray labada waa la odhan karaa cajiib kolba si kastay ahaataba xaaladdan xaalad wacan maaha gabdhaha soomaaliyeed oo ogaada idinkuna sidaas unbaad yeeshaan oo waxbaad duubaysaan wiilashaase u badan hadda wiilashaa bannaanka yaalla gabdhaha wax duuba waaba yar yihiinba anigu waxaan u malaynayaa mid miyaa arkay mise labo laakiin raggii soomaaliyeed waa lagu ba'ay qaybtood oo waa lagu hoogay oo daaqaday ka baxeen teeda kale waxaa la yaab leh nin ooradiisii wax ka duubaya oo muuqaal xun oo balaayo ah inta ka duuba haddana bulshada la wadaagaya caloolxumo weynaa kaasi nin maaha magacayaa nooga jira waxaan leeyahay soomaalida insha allahu tacaala gabdhaha soomaaliyeed oo walaalahaya oo sharafta leh oo qiimaha badan waxaan idinkula talin lahaa oo aad iyo aad idinkula talin lahaa oo idinku baraarujin lahaa walaalayaalow wiilasha markaa la hadlaysaan iskantaroola isxadida ninbaa wuxuu igu lahaa niyahow nin baan rabay hebel baan rabay inaan la hadlo oo arrin muhiim ah kala hadlo oo aniga iyo isaga iyo ummad badan dani ugu jirta laakiin buu yidhi ma awoodo inaan telefoonka waco hebel sabab waxaan ka baqayaa inuu codiga duubo oo hadhow barnaamijkaas markaan samayno oo maalin uun inuu iisoo qaato oo yidhahdo adeer adaa waxaan saa miisaan wataa lahaydo oo ceeb iiga dhigo anoo wanaag wada inuu ceeb iiga dhigo haye marka wuu yidhi hadda waxaan rabaa inaan baxo oo waddankan joogo ka tago oo waddankaa kaluu joogaa inta u tago tigid u goosto inaan si bareera ula hadlo oo ilahdo warniyo waxaa iyo waxaa iyo waxaa iyo waxaa aan samayno haddaan isku afgarano alxamdulilah haddaan isku afgaran weynana anigu tigidkaa go iyo baagga aan khasaaro iyo testiga corona oo iba dheerba marka xaaladdu halkaasay maraysaa raggii heerkaasay marayeen gabdhow barnaamij muhiima oo weyn oo mujtamac dhan dani ugu jirto buu wuxuu rabaa inuu qof kala hadlo qofkiibu wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan tigid u goosto u tago bareer ma raba inaan cod kala hadlo iyo telefoon iyo seeta iyo niyo arrintaas iyo waka programkaasaan rab wuxuu ka baqayaa inuu ninkaas wax ka duubo raggii heerkaasay gabdhow marayaan waa wax aniga markuu ii sheegay aan wax ceebi xataa ugu jirin isaga oon ceebi ka soo gaaray laakiin isagu uu u arko hadhow liidnimo inay noqonayso day meel raggii ka fekerayaan idinkuna nin maanta aa barateen oo berrito na kir iyo kac ku oran kara ama siduu doonaba hadduu kaa waayo hadalla jiljilacsan iyo maalaayacnigaa markuu xataa wanaag kale kaa waayo soo dhigaya tiktok iyo qaybaa fan u aragtaba fan hadda ka hor baan waxaan garanayaa nin gabar anagoo dhalinyaro ah gabar hadduu sii dhaweeyo halkaas xullada maartay xulladaas wuxuu soo marsan jiray boor iyo lowyada markaasuu noo yimaadaa wuxuu yidhahdaa kasa shaqeey waa gabar walaashiisahoo luuq inta ka bacqaday tiri dhaafi marka waa ogaan jirnay annaga sababtoo ah mid walba mid macquul labo 100,000 macquul ma haddee waa la isu sheegnay marka kaadib marka dadkii noocaas ahaa oo mobaylkan beer salaaxa ah helay maxaa ka sugaysaan
dhab cod buu ka qabanayaa hadduu jaanis yaro calaacaliya arrimo kugu helo gabadhiis jir intaasaan kusoo gabagabeynaya waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu